New York ee dalkan Mareykanka waxa Soomaaliya loogu codeeyay in ay qayb iyo xubin buuxda ka noqoto golahaasi. Haddaba Soomaaliya ka mid noqoshiyaha golahan maxay uga dhigan tahay xilli xaaladaheeda xuquuqul insaanka iyo cadaaladda dad badan ay durayaan. Tallaabo noocee ayay xukuumadda Soomaaliya u qaadaysaa horumarinta cadaaladda iyo xuquuqul insaanka. Guud ahaan qodobadaas iyo kuwa kaleba barnaamijka ayaad uga bogan doontaan waxaana marti igu ah safiirka Soomaaliya u fadhida qaramada midoobay magaalada Geneva Ambassador Faadumo Cabdullaahi Insaaniya. waayahay bal ugu horeyntii Faadumo Cabdullaahi Insaaniya waxaa tahay safiirka u jooga qaramada midoobay ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland halkaasi oo saldhig u ah golaha xuquuqul insaanka ee Soomaaliya waqtigan ay ka qayb gashay. ugu horeyntii bal ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aniga iyo dhageystayaashaba aan su'aalo kugu weydiin doono. waa dhawahay sar waa maasanta. waa tahay waxaad bal iga warantaa Soomaaliya waxay uga dhigan tahay maanta in ay ka mid noqoto golaha guud ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay Switzerland. waa su'aal aad u wanaagsan runtii runtii waa markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay xubin ka noqoto golaha xuquuqul insaanka taasina runtii waxay leedahay qiimaheeda. waxaa la yiri dariga ninka u dhow baa kala baxa lafta u fiican haddaanan qaldanayn mahmahdaas. markii aad kursigii iyo miiskii dadka wada fadhiya aad ka mid tahay codkaaga uu qiimo weyn leeyahay ka hadlaysid xuquuqul insaanka adduunyadoo dhan hawshii laga qaban lahaa aad ka mid noqonayso adigii waxay ila tahay wax aada u qiimo badan inay Soomaaliya yeelatay maanta. runtii ilaa sanad iyo googo baa ergadu isku taxallujisay in laga mid noqdo golaha xuquuqul insaanka maxaa yeelay bacdama aan aragnay hawshan xooga leh iyo Soomaaliya runtii aad dhibaatooyinkii soo gaaray darteed haddana dawladdu ay dadaal badan samaysay in ay horumar ka gaaraan xagga xuquuqul insaanka. barnaamijkan hadiyo goor dhageystayaasha ayaan fursadaha siinaa si ay qofka mas'uulka ee martida noogu ah ay su'aalo ugu weydiiyaan. dhageystaha ugu horeeya ee barnaamijka nagala qayb gali doono waa nin asaga laftiisa ka soo shaqeeyay xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada jooga waddan ka mid ah wadamada Yurub. soo dhawow bal Daahir Caliyow maxaad weydiin lahayd ambassadorka? waa salaamaya ambassadorada ku biirista Human Rights Commission-kana waa wax wanaagsan intaas inay dadaashay oo dadaal badan loo galayna waa uga mahadcelinayaa. laakiin waxaa meesha ka muuqato doorashada aan rabay inaan weydiiyo waxaa weeye Human Rights Commission-kii Soomaaliya ma dhisna waa dhaweydna waxaa loo galay imtixaan sidaan ka warqabay. imtixaankiina in la maasuqay baan maqalnay ilaa haddana miiska ra'iisul wasaaraha inay saaran yihiin laba liis midkii oo dadkii aqoonta lahaa oo حتى Human Rights Geneva ay soo yiraahdeen dadkii imtixaanka ku barmoosay waa kuwan. markaas sababta arrintii Human Rights Commission-ka Soomaaliya loo dhisay la yahay ay sabab u noqonaysaa. haddaan taas la dhisin maxay taraysaa inaan ka mid noqono Human Rights-ka keligeed oo commission-kii kale oo Soomaaliya uusan dhisnayn. taas kuwaadaan weydiinaya. waad mahadsantahay. waa mahadsantahay Daahir.